kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel walbood naga daawanaysaan kusoo dhawaada xogihii ugu dambeeyay haddaba maxaa cusub wasiirkii amniga ee maamulka Jubbaland sareeyo gaas Yuusuf Xuseen Cusmaan Dhuumaal oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gado ayaa maanta isku dhiibay ciidamada Itoobiya ee ku sugan degmada Doolow ee gobolka Gado Dhuumaal maalmihii ugu dambeeyay waxa uu ku sugnaa degmada Balad Xaawo kulamo ayuuna halkaas ka waday maamulka Jubbaland ayaana xaggaas u dirsaday baa la lahaa iyadoo dhanka kalena ay soo baxayeen khilaaf u dhaxeeyay isaga iyo Axmed Maxamed Islaam oo madaxweynihii hore ee maamulka Jubbaland waxa sidoo kale Dhuumaal magaalada Balad Xaawo maalmihii ugu dambeeyay kulamo kula qaatay saraakiil ka socotay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee goobahaas ku sugan laakiin laga soo diray dhinaca dawladda federaalka oo markaas doonayay inay ku qanciyaan in uu la aragti noqdo mowqifka dawladda federaalka isla markaana uu gaashaanka u daruuro maamulkii uu horay uga tirsanaa ee Axmed Maxamed Islaam ee Jubbaland haddaba Dhuumaal maxaa isbedelay maxay tahay sababta uu iskugu dhiibay ciidamada Itoobiya ee gobolka Gado gaar ahaan degmada Luuq ka soo kicitibay sidee ayay uga falceliyeen shacabka gobolka Gado qodobkeena koowaad ayaan ku dul istaagi doonaa hadduu Alla idmo dhinaca kale ciidamada Itoobiya ku sugan gobolka Gado ayaa waxa ay wadeen dhowrkii maalin ee ugu dambeeyay dhaqaaqyo xoogan iyadoo Itoobiya ciidamo aad iyo aad u tiro badan ay soo gelisay gudaha gobolka Gado horeyna ay kuwa kale u sii joogeen dawladda federaalkuna war ayay ka soo saartay iyadoo waliba Itoobiya ku eedeysay xadgudubka madax banaanida iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed ee ay ku soo xadgudubtay Itoobiya ciidamadeedana ay ku soo gelisay amar la'aan gudaha dalka Soomaaliya iyadana qodobkeena labaad ayaan ku iftiimin doonaa dhaqaaqyada ciidamada Itoobiya ay wado dhinaca ay la safan tahay garabkiya gaashaanka la sheegay inay ugu tahay Axmed Madoobe ciidamada ku soo qulqulaha gudaha Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gado ayaan iyadana iftiimin doonaa hadduu Alla idmo dhanka kale shacabka gobolka Gado gaar ahaan degmada Balad Xaawo oo murugsana maanta warbaahinta ayay la hadleen mowqifkooda ayay cadeeyeen waxa ayna dhaheen Madoobe xiligiis waxa arkaa dawladda inay ku saxsan tahay hadduu amarkeeda waa la xiraya waxaan soo dhaweynayaa xarga Axmed Madoobe in la soo xiraa in saan la saxiro aad baa soo dhaweynaya aad baa soo dhaweynaya dawladda federaalka waa ku taageersanaa in la dagaasho Axmed Madoobe iyo rejiimka aan dhicin oo iska taagan weligiis waan soo dhaweynayaa dawladda federaalka Soomaaliya inay Axmed Madoobe amartay in la soo xiro waayo Axmed Madoobe 13 sano Kismaayo iska fadhiya wax mashaariic ama wax uu noo hayo manaan gobolka Axmed annaga waa ku daal dawladda qaabka ay damacsan tahay inuu raaco hadduu diidana doon har raaco dawladda federaalku Axmed Madoobaha soo qabato waan dul istaagi doonaa iyadana mowqifka geesinimada leh ee shacabka gobolka Gado gaar ahaan degmada Balad Xaawo ay ku dhawaaqeen ee warbaahinta ay la wadaageen soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidiina nagu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland sareeyo gaas Dhuumaal oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado ayaa saaka ka ambabaxay degmada Balad Xaawo waxa uuna isku dhiibay ciidamada Itoobiya ee ku sugan degmada Doolow Dhuumaal maalmihii ugu dambeeyay wuxuu ku sugnaa degmada Balad Xaawo kulamo halkaas uga socday saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayuuna halkaas kulamo iyo waliba odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee degmada Balad Xaawo ayuu la qaatay kulan oo halkaas ay ku wada qaateen Dhuumaal marka laba mid uun samee baa la yidhi laba wado mid uma ka rabnaa baa lagu yidhi oo ay ku dhaheen saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee gacanta ku haysa degmada Balad Xaawo inaad la aragti noqoto dawladda federaalka ee Soomaaliya oo mowqifka dawladda federaalka aad qaadato ilaa dhulka dawladda federaal baa ka talisay iyo in aad magaalada iskaga baxdo labadaas mid uun samee amnigaada anagu ma qaadi karnaa leeyahay Dhuumaal marka waxa ku adkaatay laba arrimood in dawladda federaalka uu isku dhiibo oo maamulkii uu ka tirsanaa uu ka tanaasulo iyadoo waliba Itoobiya ay telefoonka saacad kula soo hadlaysay oo ballanqaadyo waaweyn loo ballanqaaday oo la yidhi mowqifkaada ha bedeli waliba xagga Itoobiya cadaadis laga saarayay iyo sidoo kale tan noqoshadii magaalada Kismaayo oo ayadana ku adkaatay kadib markii dawladda federaalku maalin ka hor ay xayiraad saartay diyaarad aan soo marin magaalada Muqdisho inaysan ka soo degi karin magaalada Kismaayo ama guud ahaanba gobolada Soomaaliya
iyadoon soo marinba garoonka aadan cadde magaalada muqdisho oo halkaasi aan baadhitaan lagu samaynin. dhuumaal marka teleefon buu dirsado ciidamada Itoobiya oo teleefon dirsado wuxuu yidhi soo gaara. ciidamada Itoobiyaana marka ka soo baxeen degmada Doolow balad xaaway soo aadeen markay magaalada soo gali rabaan bay shacabkii iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka war heleen. halkaas baana lagu hor istaagay. waxaa la yidhi magaaladan ma geli kartaan, waa magaaladan annagaa maamulayna, ma aha Doolow oo kale. amarna uma haysataan dowladda federaalkuna amarna uma aysan siinin inaad soo gashaan, sidaas awgeed noqda oo meeshiina ku noqda. dhuumaal oo dhowr gaari wata ayaa beled xaawa ka baxay. ciidanka Itoobiyaanka ah isku dhiibay meesha ay iskaga dhiibeenna wadada Doolow waa taqaanaane meesha lagta la yiraahdo lagta yar halkaas buu kaga hortagay ciidamada Itoobiya oo dhuumaal uu iskugu dhiibay una ciidamada Itoobiyana ay u galbiyeen degmada Doolow. degmada Doolow way ka duwan tahay degmooyinka kale ee gobolka Gado. waa degmo xuduud la ah dhinacan dowladda deegaanka Soomaalida, waliba degmada kale ee Doolow Itoobiya ayay saaran tahay. ciidamada Itoobiyana aad ugu xoogan oo gacan ku haynta degmadaasi 90% maamulahaya. sidaas awgeed bay marka ciidamada Itoobiya saldhigyo waaweyn bayna ku leeyihiin ayay u soo ruqaasadeen oo degmada Balad Xaawa u soo aadeen. degmada Balad Xaawa si ciidamada Itoobiya galaangal kuma laha oo waxaa gacanta ku haya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee xilligii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la geeyay waqtigii Kenya iyo Soomaaliya ay isku dhacsanaayeen ee la isku haystay xuduudii ay sirka ku xidhaysay dowladda Kenya. halkaas marka ciidamadii baa weli jooga, xoogga dalka Soomaaliyeed baa jooga oo amniga magaalada iyo agagaarkeedaba ilaalinaya. noqda leeyli marka dhuumaal marka wuxuu u galay ciidanka Itoobiya oo isku dhiibay. halkaas uu ka baxay. waxayna u muuqataa inuusan weli ka tanaasulin mowqifkii maamulkii uu la shaqaynayay ee Axmed Maxamed Islaam, iyadoo weliba dhanka kale maalmihii uu ku sugnaa magaalada Balad Xaawo uu soo celcelinayay dowladda federaalku waa dowladdaydii ani la igama laha, maamulka Jubbaland waa maamulkeennii inaga laynaba laha. marna uu lahaa shacabka Balad Xaawo ha caddeeyaan mowqifkooda dhinaca ay raacsan yihiin inay taageersan yihiin Axmed Maxamed Islaam iyo inay taageersan yihiin dowladda federaalka. marka dhuumaal qorshayaashii Balad Xaawo uu tagay waa uu ku fashilmay. dhanka kale dowladda federaalka ayaa u muuqata inay ku fashilantay saraakiishii ay u soo dirtay dhuumaal ee la kulmay ee la damcay in lagu qanciyo inuu ka soo horjeedsado Axmed Maxamed Islaam iyo systemka Jubbaland ee hadaaga 13 sano oo isaguna ka tirsanaa ee aan Kismaayo soo dhaafi karin. labada dhinacba marka waxaad moodaa in mowqifyadoodu ay isriixayaan midkoodna uusan u hirgelin. marka laga reebo dowladda federaalka oo aad moodid inay guulo la taaban karo ay ka gaadhay dhinaca shacabka magaalada Balad Xaawo. shacabka Balad Xaawo maanta waxay la hadleen warbaahinta TV-ga qaranka Soomaaliyeed ayaana mikrofoonka la dhex qaaday magaalada Balad Xaawo. waxa ayna shacabku ay sheegeen sida codadkooda baa dhageysateen oo cadeeyeen inay taageersan yihiin mowqifka dowladda federaalka, isla markaana ay ugu baaqayaan sidii loo soo qaban lahaa Axmed Madoobe oo 13 sano wax tallaaba ama horumar ah aan ka qabanin deegaanada Jubbaland. horjooge magacaaban Kismaayo aan dhinacna u dhaafin, hadduu ka baxana Imaaraadka iyo Kenya bas aada oo wax horumar bulshadiisa aan u soo ino maanta la taaban karo ayay ku tilmaameen Axmed Maxamed Islaam. dowladda federaalka markayna leeyahay way ku guuldareysteen, laba dhinacba way ku guuldarseen. dhuumaal inay soo xidhaan oo ay micnaha dhuumaal ay ku qanciyaan hadafkooda way ku guuldareysteen sida hadda muuqata maadaama Itoobiya uu isku dhibay. waxay kaloo ku guuldareysteen maamulka degmada Balad Xaawo oo ayagu weliba amni ahaan ay ilaalinayaan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu ilaalinayo. weli wax guula kama aysan gaadhin in maamulkaasi uu qaato hadafkooda micnaha ay cadeeyaan, walow la sheegay inay hoos ahaan u wada shaqaynayaan, balse ma aysan banaanka ma aysan keenin. maamulkana horey waxa uu soo magacaabay Axmed Maxamed Islaam. si kastaba dowladda federaalku dadaalay wada oo ah sidii loo godoomin lahaa Axmed Maxamed Islaam, Jubbalandna loogala wareegi lahaa. horeyna dowladda federaalku waa kay u sheegtay in la soo xidhayo Axmed Maxamed Islaam oo waaranka looga soo jaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho. dhinaca kaleeto dowladda federaalku eedayn culus ayay u jeedisay ciidamada Itoobiya oo dhaqaaqyo ka wada gobolka Gado 24 saac ee ugu dambeeyayna ciidamo aad u tiro badan soo gelisay gobolka Gado sida ay muujinayeen muuqaallo baraha bulshada lagu baahiyay. Itoobiya waqtigii dowladda federaalku ay u qabatay ka bixitaanka ciidamadeedu inay ka baxaan gudaha Soomaaliya waa gabagabo. asbuucyo kooban ayaa ka haray. dowladda federaalku horey waxay ugu qabatay ciidanka Itoobiya in December dhammaadkeeda aan lagu arki karin hal askari
oo Etoobiyana gudaha dalka Soomaaliya. Etoobiyana waxay arrintaasi u qaadatay dhalanteed iyadoo waliba sheegtay in aysan marna suurtagal ahayn in ciidankeedu ay ka baxaan gudaha Soomaaliya ama ay joojiyaan howlgallada iyo dagaalada lagula jiro khawaarijta ee shacabka Soomaaliyeed lagu badbaadinayo. waa si hadalka u dhigeen 24 saac ugu dambeeyay ciidamo badan bay Itoobiya soo gelisay iyadoo waqtigiina uu gabagaba yahay. dawladda federaalkuna warqad bay soo saartay waxa ayna sheegtay in ay loo dul qaadan karin xadgudubka ay ku soo xadgudubtay Itoobiya madaxbanaanida iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed isla markaana ay ciidamadeeda ugu soo daadgureynayso gudaha Soomaaliya iyadoo wax amara aan ka haysanin dawladda dhexe ee Soomaaliya. waynu eegi doonaa isdiidooyinka siyaasadeed iyo marxaladaha meelaha ay marayaan Jubbaland iyo dawladda federaalka isriixooda siyaasadeed iyo sidoo kale wixii ka soo kordho muuqaaladeena dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa.